بسم الله الرحمن الرحيم سؤال jawaabteeda waxaynu oran karnaa nooca macdanta ee aynu ka heli karno magma gaara waxay ku xiran tahay compositionka ama isku dhafka ay kiimika ahaan ka kooban tahay ay magmadaasi iyo kulka ama temperature iyo cadaadiska ay magmadaasi heshay waqtigii ay qaboobaysay size-ka ama xajmiga quraarada waxay ku xiran tahay sida ay culays ahaan ama dhaqso ahaan ay u qabowday magmadu marka haddii ay magmadaasi ay time yar ama waqti yar oo kale markii ay dareeraha ahayd ay ku qabowday atomiska ay ka koobnaanayso iyada ayaa guud ahaan isku habaynaysa inay noqoto mid la arki karo tamanidu waxa weeyaan dhulka hoose magmada ku samaysantay ee ku qabowda kristalka ama quraarada ay samaysaa way ka weyn tahay tan dibadda timaada ee samaysanta waana awood rabbaaniya oo ilaahay ugu talagalay inay sidaasi ay wax u dhacaan مثلا tusaale ahaan kale obsidian ka dhagax la yiraahdo oo volcanic igneous rock kamida qaybtaasi sideen hore soo sheegnay waxa uu leeyahay chemical composition ka yar kuwa kale ee obsidian isaga laftiisii una ilaakiise ku qaboobay xagga hoose obsidiankaas markuu kor soo baxo waana isla hal shay kor markuu soo baxo waqti ma qaadanayo atomkii quraarada uu ku sameeyo laakiin markuu dhulka hoose ku qaboobo waqti buu qaadanaya quraarad ahaan oo la arki karo oo soo saari karo marka qaybtaasi waa guud ahaan sharaxaynu ka bixinano umadu ay fahmi lahayd ay iskaga ilaalin lahayd waxyaalihii sunta ahaa dhagaxaanta ahaa ay iskaga ilaalin lahaayeen una fahmi lahaayeen shayga keliya ee qiimaha leh ay qaadan karayaan iyo qaabka ay u qaadanayaan haddii la yiraahdo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.